hooyadaya waxay u dhawey inaan helaa rabaa oo baahanayo intaasoo sanaa horlaan noolaay dhib iyo rafaad inaan helaa u baahanayo mugada gabadhan Soomaaliyeed waa 14 sano jir waa gabar aad u yar laakiin xanuun ayaa ka keenay gobolkii ay ku sugnayd oo magaaladan keenay kaliya waxayna u timid baafin qofka waalidkii markuu ka maqan way xanuun badan tahay balse waxaan ka codsanayaa in muuqaalka loo sheer gareeyo oo Ilaahay dartii meelo badan loogu gaarsiiyo isgarab istaagu wuxuu keenayaa Ilaahay inuu raxmado dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu ka daweynayaa lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kala goosiyo xanuun sida jilbaha xusullada kala goosyada gacmaha anqowyada kala goosyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah faahfaahin naga soo wac nambarada shaashada kaaga muuqda salaamullaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale barnaamijkeeni baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Lintir anigu waa Cabdilcasiis Riyaad waxaa tahay saaxiibka la jiraha la joogaha kan muuqaalada shargareeya ee meelo badan gaarsiiya muuqaalkana sii shargaray oo meelo kala gaarsii waan ku maasan tahay inagana follow soo dha page-keena YouTube-kana subscribe soo dhawow marka hore magacaaga oo dhameystiran gabadheena iyo halkan naga soo booqatay Saadi Maxamed Cabdullaahi Saadi Maxamed Cabdullaahi waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Lintir intee ka timid halkee ka timid waxaa ka imaaday Hiiraan dhinacee Jalaqsi ka timid meeqa sano jirtaa 14 jir gacanta afka qaado 14 sano jirtaa ha waayahay waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Lintir in dad la baafiya ku sheegay aniga ha hooyaday habarteed ayada ku sheegtay ha wuxuu dhada baafinaa jirto Jalaqsi maxaa ugu timid marka ina hooyaday raasado hooyadaha ka maqan ha hooyadaha magaceed Saadiya ayaa xal dhaha Xabiib Cusmaan Ibrahim hooyada waxaa la Xabiib Cusmaan Ibrahim hooyo Xabiib Ibrahim Cusmaan Allah aabahana Aabbe Maxamed Cabdullaahi aabahan Maxamed Cabdullaahi Macalin Maxamed Cabdullaahi Macalin aabaha Soomaali ka yahay qabiilkiisa gaajeel waaye gaajeel uu ka yahay Xaaj Saalax Xaaj Saalax uu ka yahay waayahay adiga Jalaqsi ku kortaa ku barbaartay ha 14 sano Jalaqsi joogtay ha yaa ku soo koriyay marka ayadee soo korisay hooyay dhashay hooyaday dhashay hooyada dhashay ha waayahay see loo waayay manuu sheegi kartaa hooyada oo 7 bilood ay safar aaday waxaa aaday Yemen waa la waayay marka waa liska waayay mugadana inaan arko oo u baahanahay hooyada safarka ay aaday meesha ay aaday ma lagu sheegay ha haye Yemen aaday Yemen mugas dadna ku baabeen Yemen ay aaday lagu yiri ha haye muga Yemen lagu waayay Yemen lagu waayay ha marka may qasane hooyada maqanta hadda 14 sano 14 sano hooyada meel lagu ma ogo ha ayada macaan la joogtay ha waayahay hooyada marka la magaceeda noogu celi Xabiib Cusmaan Ibrahim ما شاء الله واقرتي هو يدا قبيل كذا نشيء قبيل كذا ما بعد عدوى هي كتاهي مامي كتاهي هو يدا مركي لواي مركا ملا بعض جوبي أو ملوسمي بافيني ملوسمي ماي هي هذا لو كوا بافين ويا هذا مركو حقه أنستنا هوي بافيسو ها هوي هدي أكو داورة اسمه مقال كان وجارو محا الشيء اللي محا كعطسن لاين إنا يصفي رسالة بالهاي أي سو رئيسو ويكون سو حريرتو ها dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maxaa ka codsan lahayd dadka muuqaalada u sheer gareeyo oo meelo badan u gaarsiiyo maxaa ka codsan lahayd ina ii sheer gareeyana ka codsan lahayd haye oo muuqaalka meelo badan ay ku gaarsiiyaan ha xilligan 14 sano kadib ina hooyada hoo maqan aan raadiso maxaa kugu dhaliyay hooyada waxay u dhawey inaan helaa rabaa oo baahanayo intaasoo sanaa horlaan noolaay dhib iyo rafaad inaan helaa u baahanayo mugada marka muhiimadda ugu ballaaran waxaa waa inaa hooyada hesho ha waayahay waa lagu caawinaa hooyadan waa lagula baadigoobaa waana jeclaan lahaa inaa hooyada hesho ha waa gartay oo adoo faraxsan aan noo soo laabato hooy ay kula soo xiriirto ha waxaa loo baahan yahay
taleefon number shaashada lagugu qoro oo dadka ay kala soo xiriiraan lambar ma haystaa haa lambar haystaa noo sheeg lambarkaaga lambarkii waa furaha lama haye 29 haye 87 haye 95 marka la noogu celi waa furaha lama 29 87 95 lambarkaas adaa wato haa lambarkaasaa lagaa soo wacaa isagaa lagaa soo xiriirina waxaan rajaynaynaa in hooyada hesho mararka qaar dada ku soo wacay haddii lagu soo waco oo lagu yiraahdo hooyada meel hebelija soo baxa iska bixin waa inaad la tashataa habarirta ayeeyada inaad la tashato waay dadka siraa jiro oo gabdhaha dhibaateeyo inaad taxadirtaa la rabaa hooyada haddii run ka tahay waxaa leedahay video call isku hay tus markaas hooyada wejigeeda arkay soo ma yaa lagu sirin yaa lagu dhibaateyn taxadir yaa waxaan rajaynaynaa inaad noo soo laabato adoo faraxsan oo hooyada helay insha allah wax kaloo noo sheegays maa jiro maya ayo maasan tahay guud ahaana muuqaalka inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo rumeeyo yoolka riyada iyo rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan calashaan dadka kala maqan oo selo gabadhaana ay hooyadeed hesho waxaan rajaynaynaa innagana ilaahay maalinta yawmal qiyaamo inuu janno noogu bishaareeyo maadaama aniga adiga muuqaalkan ka wada shaqaynay intaan dib u kulmaynana nabadgelyo